jawharkii aan jeclaaday oon yaraan maad aragtay la kulmay unbu ii yahay balse anu waxaan idhahdaa hadda imikaaban kasii jeclahay حبيبتي ولا ويش؟ الحمد لله وانا جاي حالا وقت هي بس ايدي هذا اوكي جزاك الله خير اوكي شغلان waxaa iska leh wadaadka shaqadan iska leh sheekh hay soo first family jacayl ka hadlay baan yiraahdaa خير الله شيء aniga waxa ii shaareen nin baan maalin dhaweyd maqlay wuxuu yiri jawhar jacayl maya axmed jacayl kulay macalimiinimana anu marrabi magac marrabi magacaygan iskaasanayaa alxamdulilah tiba cumar baa la yidhaahdaa magacaygan ku joogayaa anaku waxaan rabnaa keliya inna nagu xasuusto inaan dadka wax barno keliya kama rabno walaa qiis walaa leylo walaa wax kale jacaylka yagu annakuna dhex yaala waa wax private waa wax noloshayada ah laakiin mucallimiin baan nahay anu waxaan jecelahay macallimad in la arko oo wax yar haddii layga faa'iidaysan karo layga faa'iidaysto tajribaduna way sii saacidaysaa laana waxa haddaad ku nooshahay way kuu fududahay inaad ka hadashid laakiin haddaanad dhadhamin oonad garanayn wuxuu yahay ma ka sheekeyn kartid horta marka iyaga horeba waxaan iska samayn jirnay sida caadiga dacwada de masaajida iyo konferensyada iyo meelaha ma aragtay marka la nooga yeero baanu ka hadli jirnay in la helo qoys wanaagsan oo fiican moogta deeto waxaa ku xigtay in aan samayno waxa la yidhahdo love challenge halkaasaan marka aniga iyo wadaadu aan go-aan ku qaadanay in wixii caadiga looga hadli jiray inta la iska daayo in loo bedelo yani inay kasoo baxdo wax ku ool ma garatay soomaalida jacaylka si fiican bay u yaqaanaan laakiin taariikh ahaan way leeyihiin laakiin sida loo matelay loo sameeyo way nagu yartahay inta badan mugta maalin baa jirtay aan xanuustay marka waxaa dhacday xaqiiqatan in wax kasta la ii keenay raashin waa la ag fadhiyaa waan jiifaa laakiin waa la fahmi lahay saaxiibkan waxaa hayay dareen ah in uu rabay guur marka dee guur gabdho 100 gabdhood ba meesha joogo laakiin hiba ku dhex jirtay 100 gabdhood ma fahmi marka hiba way timid way fiirisay 100 qof baa isoo ziyaartay way iska noqdeen laakiin ziyaarada hiba way ka duwanay ziyaaradaas hoosta marka soo salaamu calaykum way hoos soo tiri dadka baan maqlay codkeedii markaasaan idhi waaw hiba soo gashay marka qofka aad raacaysa dooranayso waa inaad quality ku doorato moqto iska raac ma qof kasta gabar kasta iska guurso ma moqto way timiday way aragtay xaaladeedii oo aan fiicnayn deeto way noqotay waxay doontay raashinadan aniga ugu jeclaa iyo daawo sharoobo iyo kiniin marka kharash badan bay gelisay marka way diyaarsanaysay iyada laftigeedu kala farad bayd moqtahay marka waxay tiri ninkan khatar waayaa la sii dayn marka aniga waxa aad ila weynaaday oo iga duwanaaday runtii 100 qof oo kala timiday maxaa iyada ka duway why waxa eray way ka fikirtay way ka walwashay she's caring and loving so ku dhag lama sii dayn karo halkaan xaajiyo markay raashinka ii keentayna waxba ma cuni karin marka hore waan cunay sharoobadiina waan cabay within half an hour warankii ahayo iga go'ay kabacdi maxaa dhacay ninkayga dhaqaaqi lahaa waan baridaan usoo fadhiistay waan istaagay waan dhaqaaqay gabadh kastoo timaada waan barbar dhigaan hibo waxay noqotaan waxaan jirin batani mufaan marka hiba waxay ahayd waa magaceedan eeg hiba wala gift marka waxaan arkaa gift ka yimid sabadina anaguna jawhar baatay jawhar jazakallahu khair nolol cajiib baan soo martay
dad waxaan ahayn yaraan isku caroosay, yaraan isku soo jeclaaday, muddo fara badan isa sugaayay, imtixaano badan soo maray, ilaahay soo ka guulaysiiyey oo kasoo gudbay. waxa noloshayada factorka ugu weyn amba shayga isku keenhaya waa jacaylka aan isku qabno runtii. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. jacaylkaasna waxaa ka dhashay gabadheeda quruxley ee curadeyda Raxmo, waxaa ku dhashay gabadheena labaad Nasro Axmed Bilaal iyo Raxmo. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. marka dadka qaarkood waxay yidhaahdaan runtii noloshaad soo marteen markaan fiirino gabdhihiina u baqnaa, gabdhihiina ayaan u baqaynaa, because waxay ku koreen, leanna waxay ku koreen jacaylkaas iyo xubbigaas iyo wanaagaasna dhex yaala oo kaftan leh, oo xataa la isdagaalayo, oo xataa la isku qaylinayo. laakiin markasta aad madaxa ku haynaysid qofkan waa qofkaagii, meelna ugama socotid. yaa dhibaatadan taalla waa dhibaato, laakiin isaga maaha qofka xun, aniga maaha qofka xun. ma garatay? jawharkii aan jeclaaday oon yaraan maadaragtay la kulmay unbuu ii yahay, balse anu waxaan idhahdaa hadda imikaaban kasii jeclaha. wallaahi in lagu jeclaado waa waxa ugu wanaagsan adduunka jira. lacag waad heli, waad waayi, wax walba waad heli, laakiin jacayl inuu qofku jeclaado naftiisao dhan ku siiyo waa wax aanan fududayn. ilaahay un baana qofka siin karaa. waan isleeyahay anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaan dhahaa saaxiibadeyda nolosha ku tilmaamay, yacni ma aha xaas, ma aha, way dhaafsan tahay. colleague baan nahay, team baan isku nahay, waan wada shaqaynaa, gabdhahan baan wada korsanaa, wada socodka, wada jirka, wada samaynta mawduucan inaan ka wada shaqayno, guryaha aan dhisno, jiil aan soo saarno. taasaan kaga duwannahay dad kale. iba oo mutacalimada oo wax taqaano oo wax baratay oo research samaysa, aniga oo macallin oo wax raadiya, in aan dariiqa dacwada aan ku heshiinay. taasaan ilaahay ugu mahadinaya subxaana watacaala. nimcadda uu ilaahay i siiyey bacda alislaam iyo iimaanka waa Axmed Jawhar. wallahi been ma kuu sheegay, lianna waxa weeyaan gabdhaha khayrkay ah amba maaragtay aan wada caroosnay boqolkiiba imisaa ku nool rafaad. ma garatay? waxaayoo dhanna maxaa sababay? waxaa sababa waxa weeyaan markii ugu horreysaa waqti laysa siiyo. xataa haddaad degda ku guursato oo qofka aana taariikh hore aanan lahayn, oo guurkiinu iyo caruuskiinu uuna jirid adag ku fadhiyin, handaro waa la samayn karaa. maaha waqtigu kaama dhicin. haweeneydaada please waqti sii, adaa arki doona natiijada kasoo baxay. dumarku diyaar bay yihiin akhiya, diyaar bay yihiin. wax u yeera, wax kaala yidhaahda, wax inawad yidhaahda, wax kaxaysta, wax la sheekaysta, wax la fariistay laayihiin. marka waxyaalo yaryaroo routiinka ka baxsan haddii la sameeyo waxa weeyaan jacaylka way xoojinaysaa, runtii way xoojinaysaa. jacaylka dadka qaarkood way ka yaqyaqsoodaan ama waxay u arkaan wax ceeb ah. anu waxaan u arkaa in ay tahay firaaq, ama culummada Soomaaliyeed aan ku soo celiyay yacna xoog loogama hadlo. xoog waxaa looga hadlaa zinada. anaga casharkeena waxaa ku jira cashar la yidhaahdo qurxinta qolka hurdada. qoysas badanna raalli ahaansho ay raalli ku ahayn qolka hurdada ayay ku burburaan. kama arkaysid inta badan in laga hadlo qolka hurdada xalaasha ah muxuu kaga duwan yahay zinada. lama promote gareeyo, lama sheego raaxada ay helayaan wiilka iyo gabadhu markay isguursadaan ay qolka hurdada ku erayaan. caafimaad baa ku jira, ilaahay baa ku farxaya, ajar baa loo qorayaa. saxaabada waa kuwii la yaabay. wa fii budci axadikum sadaqa. wadaadada markay sheegayaan calaa muruuri kiraam walayaal maraawo waa laga gudbaa. qaarkood waxay ku dhihi warsheeg waxaa naga daa, ilaahay maqane waan naqaanaaye naga dhaaf. zinadii baad ka hadlaysaa 24 saacadood, xal uma haysid dhalinyaradii. guurkii macaankiisiina maaragtay uma sheegaysid. yaa u sheegi marka? luuqii suuqaa la isla wada gali, waana dhib. marka in la promote gareeyo guurku raaxadaas inuu leeyahay, aniga marka waxaan leenahay in la barto, la isbaro, laguna dhiiri geliyo siduu nebigu ugu tirtirsiinayay dhalinyarada in ay guursadaan. markay guursadaanna diintooda nusdhan ay u kamilmayso, in lagu dhiiri geliyo, weliba loo sheego macaanka halkaa ku jira.
takala waxa ugu fudud Axmed waxa ugu fudud waxa weeyaan inaan wax ku siiyo koobkaas inaan ku siiyo waa inaan lacag ku soo gado Soomaa on keeno on doono on soo iibsho on keeno laakiin inaan kelmad yar ku yiraahdo on xabiib ku yiraahdo oo naftayda aan ku yiraahdo oo jawhar aan ku yiraahdo oo nacam aan wax wanaagsan qofka u doono waa free waa bilaash marka cilaaqadiina waxay u baahan tahay boorka in laga jafo in wax yar oo cusub lagu daro annagu waxaan barnaa jacayl kaliya ma waa isfahanka labada qof qaabka in noolaan lahaayeen nolol fiican say u heli lahaayeen isfahankooda say u wada hadli lahaayeen intaan baranay baaba ka badan ba wax walba ma garan marka walaal waxa weeyaan insha Allah wax badan baa ka baran ha bartaan dadku